السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا هبين عصب إيو والناس وذكرام أو حربا إنان كهدلو موضوع كسابسان suicide معناهيد waxa waaye qofka markay isku daydo inay nafteeda gooso ama ay nafteeda gooso iyadoo ugu tala gashay inay dhimato so suicide calaamadaha waxaan ka hadlaynaa maanta ama sidee lagu gartaa qofka oo suicide ka fikiraysa ama rabta inay nafteeda gooso and the reason aan usoo qaatay mawduucaneeto is because annaga haddaa Soomaali nahay waxaa aaminsanahay horto inaa suicide anaga nagu dhici karan ama qof naga mid ah inuu naftiisa goonaynin anaga muslim aan nahay aan dhahaynaa iyo dadka naftooda gooyaan iimaan dara ahaaso iyo diintooda yar laakiin runta haddii la sheego suicide dadka dhexdeena dad ka mid ah kasoo baxaan inay isdilaan ama rabaan inay naftooda gooyaan dadka anaga ma ognihi waxaa maskaxdooda ku jiro so it's very important inaa dhihin anaga ma nagu dhacaysa waxaaneeto because dadkiinaan ka fiicannahay ama because muslim aan nahay maalin kasteena dhacdaa recently I don't know haddaa aragteen aabba la sheegaya inuu aabba oo 4 cunug qabo inuu naftiisa gooye maxaa u sabab waxyaabo badan oo sabab noqon karo and as I said qof oo waxaa dhihi karta malaha ani waxaan ma isoo gaarayo because I'm special ma jirto cudur markuu yahay waxa so suicide is waxa waaye qofka markay naftiisa gooso ama goonaysa ama ay rabto inay nafteeda gooso waxyaabo badan oo sabab noqon karaan waxaa ka mid ah sida cudurrada maskaxda especially depressionka qofka markii ay gaarto heer oo inay rajo la'aan noqoto oo depressionkii sariir uu saaro ee adduunyada la madoobaato ee marka bilowdo inay isweydiiso ani maxaan u noolahay iyo adduunyada neeta maxaan u joogaa iyo yaa kala jecel haddaan dhintay haddaan noolahay ani dadka culeysle aan ku ahay marka hadalladaasayto waxaa laga dhadhamin karaa inay qofkii rajabeel ku dhacay oo rabto nafteeda inay gooso dadka oo rabaan inay naftooda gooyaan hadalkooda waxaa kelmado ay isticmaalayaan jiraan oo lagu kasaayo so maybe qofka caadi inay ku dhahdo nafteeda raba inaan gooyo ama waa ku fikiraya nafteeda inaan gooyo ama inay dhahdo anaka maybe su'aalaha oo camal qof kasta oo nafteeda gooso naarta may galaysaa horto you know hadalladaas ay dhan hadallo oo waxa waaye especially qofka haddii ay qabto cudurrada oo mental healthiga ina la ilaaliyo kelmadahaasayta because qofka haddii ku dhawaaqda ama dhimasho ka hadasha wax badan inaa la dabagalo oo maxay hadalladaasayta maxaa keen hadalladaasayta inaa la fiiriyo haddii dhahdo marab inaa noolaado dadka culeysa ku dilooya you know stress culeysan ahay qof oo culeys dadka u keento burdenan ahay camal rajo malihi hope malihi you know haddaa iska dhima lahay way gu fiicnaa laheyd I wish inaa seexdaan beri soo kicin waxyaabahaas dhan hadallada oo dadka laga ilaaliyaa oo laga heli karaa haddii ay qofka rabto inay dhimato midda kale waxaa lagu fiirin karaa behavioral change waxa la dhahaa jiro so dadka masalan oo waxaa arki kartaa inay qofka masalan qofka hadeed ahay dadka khamriga cabaan ama you know droogada isticmaalaan inay too much isticmaalaan inay waxa yani isku dayaan inay maalinba maalintii ku xigta inay kasii badiyaan hala ay isticmaalayaan just to see how much ay u qaadanaysaa inaad dhinto or xataa marmarto see test haddii aan haddaa horta iska badiyo aan khatar nafteyda ay gasho yaa ii xumaahaya yaa itawaayo you know mal ixiisa ani haddaa dhinto horto camal waxaa jirto dadka qaarkood inay raadiyaan online ay galaan oo maxaa waaye sida ugu fudud aan ku dhiman karo camal inay internet ka fiiriyaan ama meeqa kaniini aan u baahanahay inaan qaato si aan u dhinto so online markii waxyaabahaas laga raadinayo bistoolasay ku gadan karaa qofkaas siita inaa waxa waaye already waxa waaye fikirkii wuu dhaafay oo hadalka wuxuu gaaray inuu maxaan ka qaban karaa sidee nafteyda u dhameen lahay so planning oo bilaabay so that's very dangerous qofka markay planning bilowdo waxa waaye heer oo waxay gaarsiisan tahay it's just a matter of inay access u helaan waxyaabihii oo naftooda ku geelhaayeen dadka inay iska gooyaan dhici karto inay like isolation gooni noqdaan qolka kusoo xiraan markaan way plan garahoyn inay isdilaan maxay rabaan inay dadka kasii haraan maybe telephone inay diraan inay dadka macsalaameeyaan ay bilaabaan inay dhahaan you know macsalaameys aday oo indirect inay suubiyaan waxaa jirto inay masalan waxyaabihii ay qabeen oo yani
like هذا teenager عمل يهي and video games important to إنه video game كي صاحب سي عمل you know so that's مركي أو property جود دتك إني even بلعبان is big علامة وعيني رواني إزدلان and those are دتك أو playing جريهوين some people أو حاجران أو impulsive نمو فذات كل أخاقيان behavior كاسيت like دتك بدن كود لوي playing جريان أو قف كنتي نفتي سجونين waxyaabo badan oo waxaa jiro lagu arki kara ama ay suubin karaan oo la ilaalin karo ama dadka ay markaa soo dhaxgali karaan oo caawinaad loo heli karo also a lot of aggression jiro qofka inay xanaaqdo عمل because إذا قفك إسله هاد لو سو حي plan قريه هو سامس كحدي صوتات كمركي لها طلان إيه وحاس إنه صبر كينو كوير عادو دعي كرتو وحاكا ليتو صوتاس وحواي على مدى أو لو قرنايو أو in terms of like mental health أو ماس قفك مركي أو like هذا الكود واحد كبدل أي behavior كود وحاجرو دت أو high risk يدت أو low risk دت أو وحا high risk وحواي قفك هدي أو mental health qabto janiska oo inay nafteeda gooso uu badan yahay kuru kacsan yahay hadii oo history oo waxa ay qabto hada ka hor isku dayday inay nafteeda gooso waxa way high risk you galina waxa kale jirta hadii oo mesela familkeeda dad kamid ah naftooda isku dayan inay gooyaan also waxa waaye the chances of inay qofkaas seeta iidan isku dayday inay nafteeda gooso ama inay nafteeda gooso aad u badan yahay waxa jirto marmar mental health iyo wax oo bi'ada marmar inay cause garayso qofka inay gaarto heer oo nafteeda inay gooso I mean adduunyada hadda waxa waaye subhanallah stress ku iska batay dhibaatooyinku iska batay and anytime oo stresski nagu dheeraado qofka waxa waaye riskiga oo like the chances of inay nafteeda gooso kor u kaca so waxa dhici karto hadii ay mesela qofka stress badan ay ku nooshay qof oo mesela aqaalihi aad ugu yar yahay shaqada aan ku dhacday muddo dheer yana qatar gurigiisa inuu lose gareeyo u badan tahay depression kiisa badan ay qofkaasi because markuu wax badan sabro oo wuxuu ka qabto waasan yahay depression ku dhacaya depression markuu qofka batane heer oo wuxuu gaaraa inuu ka fikiro hadaas ka dhimo lahay way fiicnaa lahayd you know dhibaat waxaan ama arki lahayn nimankii naagaha nimanka waxay yihiin more nimanka hadii ay isku dayaan in naftooda gooyaan most likely way succeed garayaan way complete garayaan naagaha more likely inay try garayaan laakiin badanaa ma nimankii naagaha markii la dhaho qofkii oo isku dayday inay nafteeda gooso oo laakiin goosay nimanka u badan because nimanka waxa waaye mana hadal badna oo ma sheegaya naas dilaan rabaa isaba depressed iyo waxaasaytu way iskala weyn yihiin wax kasta way isku celinayaan and then maalintii go'aankaas garaa inay naftooda gooyaan way goonayaan warnaagaha they might inay ka hadlaan wax badan maybe inay isku dayaan laakiin ma u badna waxyaabaha oo like bistool camal isku dhuftaan ama inay xiriga isku suraan is hangi garayaan uma badna nimanka waxay suubinayaan waxyaabo oo very brutal markii ay isdilayaan so bistoolad camal inay madax iskaga dhuftaan inay xirig iska soo lalmiyaan waxyaabahaas nimanku ku dhaqmaan so stress kaasita badan wuxuu ku hoosgaray karaa qofka inay heer oo depression ay gaarto hadday heli weyso inay dad kala hadasho ama dad caawinaan inay problem solve garayso waxa kaloo jirto mesela bullying is a big thing hadda these days haddaad aragtiin ilmaha badankood oo la bully gareeyo waxaa arkaysaa recently journalka akhrinaya cunug oo 9 jir ah gabar yar oo isdishay why because waa la bully gareynaya iskoolka lagu dhibay arday kala ku dhibeen way ku cadaadiyeen caawinaaday waasi qof ay kala hadasho ma lahayn si isku waclihiisa u adkeysanaysa maalinta kale maxay soo bis nafteeda guusi so stress kaas badan oo qofka ku nool yahay heer uu gaarsiin karaa inay naftiisa gooso waxaa jirto mesela relationship issues you know hadii oo mesela hooyo ay ku nooshahay situation oo abusive nin ay la nooshahay oo maalin kasta dhibayo cadaadinayo oo dhinaca kaga baxda waaso waxaa dhici karta inay ku fikirto nafteeda inay gooso so waxa waaye markii la dhahay suicide ma dhihi karni hal waxaas koos gareeyo waxyaabo badan koos gareyn karo laakiin one thing aan ogahay waxa waaye preventable why most of this because qofka mental health haddaa qabtid waa daawa taalo wadan oo waxaan joognaa daawo jirto counseling jiro a lot of people oo waxaa jiraan cudurro mental health ay qabaan depression bipolar schizophrenia anxiety oo laakiin nolol fiican ku nool oo shaqaystaan oo guri leh oo xaas leh oo carruur leh oo noloshooda caadi u wataan daawadooda ay qaataan daaway ku nool yihiin laakiin
alxamdulilah they live good. So why not adiga maxaa kaa reebay haddaa cudur qabtid ceeb ma aha sokor hadda kuu qabtidba waa dhihi lahayd sokoran qabaa maalin kastaan cirbad waa isduri lahayd maxaa kuu diiday haddii aad depression qabtid ama bipolar ay qabtid kaniinigaaga inay qaadatid oo isdaawaysid si aad naftaada u badbaadisid si aad communityga u badbaadisid marka hadda soomaalida markaan fiiriyay gudaheena waa arkay several cases oo suicide ahaan arkaan even in a state oo meeshan ku noolahay camal u yar there is several cases of dad isku dayan inay isdilaan alxamdulilah ilaa hadda qof succeed garaysay oo nafteeda goosa maana arkin laakiin I've seen several cases oo dad isku dayan inay naftooda gooyaan oo anaga naga mid ah so why aan ilaa usugayna ilaa nafteena aan dhaawac gaarsiino waa usugayna ilaa dadka kala gaarsiino alxamdulilah ilaa hadda qof oo homicide maana arkin oo rabta inay qof kala disho laakiin markii uu stresska ama cudurka naga bato heer waxaan gaari karnaa inaan ku fikirno dadka kale inaan dhameyno so why aan usugayna ilaa halahaasayto counseling aa jiro treatment yaa jirto why don't we take advantage inaan ka faa'iidaysano ma dadka dhahna nacaawin iyo noo qaba imana tus jidkaan mari lahayn si oo lagu caawino si aad naftaadan wax ugu tartid si aad dadkaagana wax ugu tartid and as I said qof kasta way og tahay inay qofkii dhimato iimaan daro inay ahayn qofka oo markay nafta isdilaysa qasab maaha inay iimaan daro haaso ama inay naarta rabto inay gasho ama inay diin la-aan haaso dadka dhan diin way qabaan waana ognahay nafteena inaan goon xaq inaan u lahayn laakiin cudurka markuu naga bato judgmentigeena miisaankeena qiyaasteena ah qaldanto so marka anaka family nahay as a community markaan nahay waa inaan dadka dhagaysanaa waa inaan dadkeena dhagaysanaa markii aynan wax ka tabanayaan automatically inaan dhahna ma aha iimaan daraa ku haasa iyo wax laba rakac duka ilaahay u noqo it's good ilaahay inaa u noqotid it's good laba rakac inaad dukatid laakiin also maxaa kaloo lagu qaban karaa inaa la fiiriyo as a community maxaa available no ah aan qofkaanayto ku caawini karnaa so please midda ugu weyn hadda raba inaan dadka oo la taliyo haddaan Soomaali nahay waxa waa inaan isdhageysano familka bizaad dhibaatada badankood familka ka imaada because anaka as a family haddaa isdhageysanin meel ma gaarayni waxa waaye ani ma baxay dariska mu sheeganay dhibkayga familka u sheegana markay familkii ay dhahaan iimaankaaga ayar iyo waxaa yar diintaada yar of course waxay noqonaysaa dad waxay u kalifaysaa inaan wax kasta isku celiyo because waa believe garayna way aaminay qofka inuu iimaankeeda yar yahay oo maxaa iga qaldan aniga dhehaysaa dadka dhan waa nool yihiin so qofka daruuri ma aha inuu iimaankeeda yar yahay anakan ilaahay manihi we should not inaan judge garayno we should qofka inaan dhageysano maxaa lagu qaban karaa iyo maxaan ku samayn karnaa inaan dhahno aan weydiino إن شاء الله hotline ka waxaan kusoo qoraa suicide prevention ka qofkii rabta inay wacdo laakiin haddii aaba gaarsiisan tahay heer oo aad ku fikiroosid naftaada inay goosid please asxaan suubi call 911 askarta kuwa haddaa wacdid aadheed isbitaal oo baahnaa inaa leegay way ku imaanayaan rayday ku siinayaan to the hospital si oo lagu caawino ha sugin ilaa oo ha gaartid heer oo naftaada wax yeeshe mida kale a lot of cases oo waxaa jiraan qofka markay wax daawo qaadato ama ay rabto nafteeda inay isdisho mana aysan dhimanin laakiin damage oo dhaawac oo waxay isgaarsiisay kasoo noqod lahayn oo maskaxdii wax gaarsiisay jirkii wax gaarsiisay disability oo permanent ahaa yeelata saas and that's not good either hadalkay kalaasaan kusoo gabagabaynaa insha allah caabo waa mahadsantihiin and waa kaasa waa inoo wellness with ikram asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu